magacaygu waa Hibo Nuur Axmed waxaa ka tirsanaya ardada Baxnaano oo ka baranaysay businesska way noo soo gabagabowday maanta waxaan difaacanaynaa projectigeena waxa dareemayaa cabsi badan laakiin waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto oo iga aqbalaan in siiyaan maalgelinteyda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء جوا سلمى أبشر علي وحن كم إذا أرضي بروجكتي ما أنت دفاع عني شيء بزنس كبحنانو أنا وحكوساب سنة جناح سيجي حولها نول وحن روا إنها كجناح صدق حولها نول جار أهان أرجع إذا ها ليلة يوح علم إذا إن جناح سيجي يقول كتير سنة هاي أما عنك كأني دونا قبل حول ليدا يسوق هذا وين سدا سوق إن بيدبا ما أنتوا حيد ما أنت دفاعنا إن بروجكتي الحمد لله ونيسو لما هذا السوق روح بدنا نجوسي جبوي وحرجينا بحنان التيم إن إيميل جليان أو عن هرمر جناحسي عن أبو شيء أما عن ديار صديق عن كو خبصن دونا وين ما هتسين بحنان التيم ناصر مد إيمت دور كي ويبوا مال النما وبكتير سنة تيم بحنانا برنامجكم ولا كتلا جري دد أو دد صوماليات أو هالأمور شو لنكمل جليو ما أنتنا ويا هاي تي بيجن داي أو لن كتلا جري إن سؤال لك ويديو سؤاليونا ويبا كميد هاي تي سببتها الجناح سيبون بلا بس ما يت سيدا درتيه دور أرضي لك كلهم سداي وقدام بيننا وقيمة يدونه هو بإلهي أرى. وما سنتهيبو دكان وحاربتا دمرك إنا فرتيد كجنا عستي هرب وشقيس. هرب وشقي هو إذا لسه شقي وخبرت في عنا ولين يبين تدرك دمرك إلى هذا هو إذا لشقي. ما أنتوا حنتاجنا هو بيتشنديجة بيتشنديجة وحن له كرنا وامرو حلقي كرست تاجن dhalinyarada waxay soo jareen wada dheer ay ka soo bilaabeen tababar waxa loo dhisay maskaxdooda oo social emotionally soft skill baa la siiyay kadibna waxa laga dhisay muddo dhowr usbuuc ah dhinaca businesska oo waxa lagu bilaabay in xirfadahooda oo hal abuur in kor loo qaado in la tuso horta baahida iyo dhibaatada fursado inay ka dhalan karaan mushkilad kasta ay arkaan inay ka dhex arkaan faa'iido iyo fursad kadibna usbuucyadii xigana waxaa aad loola tacaalay in laga dhiso aqoontooda oo qorsheynta businesska inay awood u helaan inay qorsheystaan businesskooda operationalkooda kadibna financial literacy-gooda xisaabaadkooda ay saxan karaan fikir fiican intay la imaadaan qorsheysan karaan maalgelin codsan karaan kadibna qorshahooda inay bilaaban karaan marka waxaan ka filaynaa insha Allah taala dhalinyaradeen hadirtaan maanta inay difaacdaan qorshahooda waxaan u diyaarinay waa gudiyo panel waxa jiri doonaan oo dad khubaro ahna ku jiraan arday kasta ama ka qaybgal kasta ama ka faa'iideysi kasta inuu hortooda ku difaacdo qorshihiisa oo ka sheego wuxuu rabo inuu furto fahanka uu ka leeyahay fursadaha uu ka arko iyo habku rabo inuu wax u wado iyo lacagta uu rabo marka waxaan isleenahay waxa weey waa bilow wanaagsan ardaydeena waxaan isleenahay insha Allah taala iyagoo wada ganacsiyadooda shaqeynayaan oo successful ba isbedel weyn insha Allah lagu arki doono